السلام عليكم walaalayga qaaliga kusoo dhawaada channelkayga Minas Kitchen. maanta waxaan la wadaagaa qada yar oo fudud ciyaalkana aad u jecel yihiin adigana nafsadaada u samaysan kartid. waa beef steak hilib lo'aad oo qudaar ku sameeyay iyo bariis cad. halkan waxaan ku hayaa beef steak oo jarjaray, fish sauce aan ku daray iyo hal qaado oo vinegar, oyster sauce hal qaado, soy sauce hal qaado iyo baking soda. waxaan kaloo ku daray cornstarch oo hal qaado. haddana waxaan hayaa waa barbarooniga 3 noocan u jarjaray iyo basasha guduudneed. haddana waxaan qasayaa waa sauce-kii aan gadaal kaga dari lahayn. waxaan ku daraa 2 qaado oo fish sauce, qaado oo soy sauce, hal qaado oo vinegar, iyo hal qaado oo oyster sauce. waxaan ku daraa 2 qaado oo brown sugar, sokorta brownka. intaasaan isku qasaa insha Allah. hadhow aan gadaal kaga daraa markii uu beefka bislaado. hadda karidina bilaabanaysa insha Allah. waxaan ku daraa 2 qaado olive oil. hadda hilibkii aan ku ridayaa. digsiga waa inuu aad u kululaado, saliidana kulusha, waayo haddii kale biyo ka dhalaa hilibka. marka saa ugu rido waa u deynayaa ama walaaqay. waxaan rabaa inuu hoos ka karo intaana, haddii kale biyo iga dhalaya. waa kaas saasuu noqday. toonaan ku darayaa. haddana waxaan ku darayaa insha Allah green beans ama digirta cagaaran sidaa u taqaanaan. haddana waxaan ku darayaa sisinta saliideeda, waa sesame oil, 2 qaadaan ku darayaa. carafteeda iyo dhadhankeedaan jecla, taas waan gadaal uga darayaa. qofkaan jecleen wuu ka deyn karaa, qasab ma in lagu daro. haddana barbaroonigii iyo waxaan ugu darayaa basashii aan jarjaray. basashii iyo barbarooniga waxaa waaye waa 3 nooc oo barbarooni ah iyo basasha guduudan. qalar qurux badan u yeelayaa, basashina way macaanta. hadda wax kasta waa isku shiilmeen. sooskii aan ku darayaa waan uga dejinaa insha Allah. waa sooskii hadday taan qasay oo sokortii iyo soy sauce-kii iyo fish sauce-kii isku jireen. wax yar markaan walaaqo horaan ka dejinaa insha Allah. haddana basbaaskaasaan ugu darayaa, waan ka dejinaa insha Allah. waa qado yaroon caadi ahayn, waqtina kaama qaadanayso, ciyaalkana u fiican, adigana ku fiican insha Allah. haddana waa ka dejinaynaa, saxankeena ku gedisanaynaa. waxaad ku cuni kartaa bariis. ani bariis cad oo jasmine rice oo ku kariyay qumbo aan ku cunaa.
oo ciyaalkan ugu kariyaa insha Allah bariiska saan u sameeyay waan soo dhigi doonaa qumba iyo waxaan ku kariyay saliid iyo cusbo bas caanaha qumbaan ku kariyay caadi ma wallahi markaad bariisku cuntid macaanka waad yaabaysaa insha Allah dewakaas salaamu calaykum